Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan daawadayaal halkan waa shabakada wararka Arabsiin News. Waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka roon ee wararkan idin henan waxaa ka mid ah tartanka siyaasadeed ee Taiwan iyo Shiinaha sidee ayuu u saameyn doonaa Somaliland. Waxaan idin soo gudbin doonaa maqaal dheer oo laga qoray arrintan isla markaana ay ka hadlayaan khubaro falanqeeya arrimaha siyaasadda dunida. Qarax goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho iyo faahfaahinadii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa. Siciid Dani Axmed Madoobe oo dalbaday in ciidamada Haram Cad laga saaro Dhuusamareeb ka hor shirka magaaladaasi ka furmaya maalinta berito ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 9 bisha. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo dil toogasho ku xukuntay askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya hore dil u geystay. Intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon ee wararka Arabsiin News aan idin hena saaxiibayaal daawadayaal goordhow diyaar garowayagoo intaa ka faahfaahsan oo aan idin maqalna haddii ay buwen uu qadaro marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka noo saartaan oo aad ka mid noqotaan bahda ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadeena halkan ugu soo baahino noqod daawadaha ugu horeeya markaan qadar adeega bulshada ogtahay macmiil adeegyada cusub ay ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka geyiga ee bariga galbeed sanadkani cusub ee 2020 shirkadda bariga galbeed oo horeba shacabka ku dhaqan geyiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale ammaano lagu kalsoon yahay. markale kulan haboon saaxiibayaal aynu ku bilaawno tartanka siyaasadeed ee Taiwan iyo Shiinaha sidee ayuu u saameyn doonaa Somaliland. waxaase arintan ka hadlay khubaro falanqeeya arrimaha siyaasadda caalamka. warbixintan waxaa lagu daabacay bogga hore ee wararka ee uu baahiyo wargeyska la yiraahdo newdelhitimes.com oo kasoo baxa dalka India. maqaalka wargeyskan uu qorayna waxa uu ku bilaabay sida tan: Somaliland waa gobol sheegta inuu madax banaanida ka qaatay Soomaaliya inteeda kale oo dhaca bariga Afrika ayaa si rasmi ah u aqoonsaday Taiwan oo waa maamul kale oo aan helin aqoonsi caalami ah midka qaramada midoobe. aasaasidda xiriirkan ka dhaxeeya labada dhul ee isxukuma waa horseedka Taiwan kaas oo sanado badan u dagaalamaysay guuldarooyin ee ka dhan ah xukuumadda Beijing si loogu guuleysto ama loo ilaaliyo aqoonsiga diblomaasiyadeed ee wadamada yaryar. wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Chasafu ayaa qoraal ku sheegay kowdii bishan in labada dowladood ay ku heshiiyeen in la dhiso xiriir ku saleysan saaxiibtinimo iyo ka go'naan ee wadaagida qiyamka guud ee xornimada iyo dimuqraadiyadda, cadaaladda iyo xukunka sharciga, iyada oo lagu saleynayo gacan iswadaarsiga labada dhinac. Taiwan iyo Somaliland waxa ay iska kaashan doonaan dhinaca kalluumeysiga, beeraha, tamarta, macdanta, caafimaadka, bulshada, waxbarashada, tiknoolajiyadda, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda dalka Taiwan Chasafu. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku jawaabay bartiisa Twitter-ka qoraalka uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka xafiiska wakiilka ayaan dhawaan laga furi doonaa Taiwan. Somaliland waa wadan iskiisa isku magacaabay oo caalam ahaan waxaa loo arkaa inay tahay gobol ka mid ah Soomaaliya sida wargeyska uu qoray. Shiinaha ayaa ku andacoonaya Taiwan in ay tahay dhulkeeda gaar ahaan isla markaana ay ka soo horjeedaan in jasiiradan la siiyo xubinimada qaramada midoobe. dowladda Shiinaha ayaa u jeertay xiriirka diblomaasiyadeed oo uu la leeyahay wadamada aqoonsaday Taiwan. taas ayaana keentay in Taiwan ka hor istaagto shirar badan oo caalami ah in ay ka qayb gasho iyo sidoo kale in ay xaadirto 15 xulfood ee diblomaasiyadeed ee iyadu xiriirka dhow ay la leedahay. waxaana taasi ay sababtay in go'doon ay geliso xukuumadda Beijing. isaga oo ka jawaabayay ogeysiisyada afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa waxa uu ku eedeeyay Taiwan isniintii in ay wax ay u dhimayso madax banaanida iyo degnaanshiyaha Soomaaliya. Shiinuhu waxa uu sii wadi doonaa xiriirka uu la leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho mana aqoonsanayo Somaliland in ay tahay dowlad madax banaan, ayuu yiri. Shiinuhu wuxuu si adag ugu soo horjeedaa Taiwan in ay Somaliland la sameyso hay'ad rasmi ah ama yeelato nooc kasta oo aan rasmi ahayn oo la isku weedaarsado.
afhayeenka ayaa wariyaasha u sheegay kadib shir jaraa'id uu qabtay maalinta isniinta ahayd ee shirka maalinlaha ah. Wargeyska ayaa xusay Somaliland waa Taiwan saaxiibkii ugu horeeyay ee cusub tan iyo 2007 markii ay xiriirka ay la sameysay Saint Lucia. waxa ay sidoo kale lumisay xiriirka diblomaasiyadeed ee dalal badan laga soo bilaabo 2016 hase yeeshee muhiimadda xiriirka cusub ee ay la yeeshatay Somaliland waa su'aal furan weli. Qaris Ali oo ah qabiir siyaasadeed oo ka tirsan jaamacadda Stanford ayaa u sheegay VOA in heshiiska uu la micno yahay guulo yaryar oo astaan u ah Taiwan iyadoo Beijing ay sii wadi doonto qudaygeeda ay ku carqaladeynayso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee ay la leedahay wadamada kale. Sanadkii la soo dhaafay Kiribati iyo Solomon Islands waxa ay doorteen in ay gooyaan xiriirka diblomaasiyadeed ee Taiwan ay la lahaayeen inkastoo mucaaradka u furan yihiin Mareykanka. Ololaha cadaadiska Shiinaha ee ka dhanka ah dhinaca diblomaasiyadda caalamiga ah ee Taiwan ayaa si weyn kor ugu kacday iyadoo oo la fiirinayo cabirka iyo isku biiritaanka ee Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha. Taiwan waxa ay leedahay qalab yar oo dib loogu riixayo ayuu yiri qabiirkan oo u horamay VOA inkastoo aysan ahayn afgambi weyn oo diblomaasiyadeed oo loogu talagalay Taiwan. Tallaabo kasta oo loo qaado dhinaca kale waxay siin doontaa dhiirigelin niyad ah ayuu hadalkiisa uu sii raaciyay qabiirkan ka faalooda arrimaha siyaasadda ee la yiraahdo Qaris Ali. Thomas waa la taliyaha cilmi baarista ah ee ka shaqeeya barnaamijka Asia Program waxa uu agaasimo ka yahay macadka cilmi baarista arrimaha dibadda. Maqaal uu daabacay isbuucii la soo dhaafay waxa uu ku tilmaamay in xiriirka laba geesoodka ah ee soo kordhay ay u badan tahay inuusan noqon doonin mid dhaqaale ahaan ama mid military ah balse kaliya uu magac ahaan jiri doono. Si kastaba ha noqotee waxa ay muujin kartaa sida dowladda Taiwan u dooran karto in ay maareyso 4 sano ee soo socota horumarkeeda diblomaasiyadeed iyada oo la helayo shuraako cusub oo aan ixtiraamaynin Shiinaha ama bulshada kale ee caalamka ayuu yiri shakhsi kale oo uu soo xigtay wargeyskan. Ugu yaraan waa isbedel ku yimid oo ku meel gaar ah oo uga yimid nasiib darooyin Taiwan ee diblomaasiyadda tan iyo 2016 ayaa lagu yiri qormada wargeyskan New Delhi Times uu baahiyay. weli waxaad daawanaysaan wararka Arabsiya News. markan haddii aynu eegnano wararkii ugu dambeeyay qarax ayaa goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax goordhow ka dhacay ee qeybo kamid ah magaalada Muqdisho. qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay gaarka madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad oo ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir. wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxaasi lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya oo maraya halkaasi. macadda khasaaraha ka dhashay oo joogtiisa si weyn looga maqlay xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo xiray aaga uu qaraxa uu ka dhacay bishii hore ee June 18 ayay ahayd markii qarax noocan oo kale ah uu ka badbaaday taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Cali Bariise kaasi oo lagu leegtay agagaarka meesha maanta uu qaraxa uu ka dhacay balse wax khasaare xoogan qaraxaasi waxa uu ka soo gaaray dad shacab ahaa oo la socday mootobajaaj. ugu dambeyntii haddii aynu eegnana saaxiibayaal maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil toogasho waxa ay ku xukuntay askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. askarigan oo dhawaan odayda ahaa oo ganacsadaha ku dilay isgoyska cirgaabta ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir ayay soo gabagabaysay maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dhageysiga dacwad ciqaabeedka loo haysto. maxkamadda ayaa maanta go'aamisay in askariga ka tirsan booliiska Soomaaliya ee dilka hore u geystay ay ku xukuntay dil toogasho ah. waxaana ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koobaad ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida
waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane deble buliis 24,682 nuur daahir geedi ina caasiro maxamuud xuseen 29 jir ah ku dhashay gaalkacyo ka tirsan saldhigga buliiska Shangaani kaas oo xafiiska xeydhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dembiga ah dil kas ah isagoo si bareer ah u dilay marxuum Umar Xasan Macalin dembigaas oo ka dhacay degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir 16 bishii 2020 doodeer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeeryaalaha guud ee ciidamada qalabka sida markii ay dhageysatay maxkamaddu qiraalka eedaysana nuur daahir geedi uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in isagoo sigaar ka iibsanayo marxuumka ay xabad ka dhacday qorigiisa sababtay geerida marxuum Umar Xasan Macalin markii ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo la jooga marxuumka uu imaaday eedaysanaha oo wata lacag shilin Soomaali ah uuna u dhiibay marxuumka kadibna marxuumku uu ku dhahay lacagta way jeexan tahay eedaysanuhuna uu damcay in uu xoog wax looga iibiyo marxuumkuna uu ka diiday kadibna si xanaaq leh uu uga tagay eedaysanaha wuxuuna soo laabtay isagoo ku hubaysan qoray iyo boosh wuxuuna xoog ku qaatay baakad sigaar ah kadibna marxuumka ayaa ku dhahay ii dhig xoolahayga eedaysanahana wuxuu ugu jawaabay 2 xabadood oo mid ka mid ahay wajiga kaga dhacday marxuumka sidaasna uu goobta ugu geeriyooday markii ay aragtay maxkamaddu cadeemaha dambi muujinta ah ee la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen cadeemaha laga qoray maragga qiraalka laga qoray eedaysanaha warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirka marxuumka qoriga uu dilka ku geystay eedaysanaha markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeeryaalaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble buliis 24,682 nuur daahir geedi uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Umar Xasan Macalin cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillahi tawfiiq warkaad ka daawaneyseen Arabsiga News waa inaga inta aad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xiga intaanu dib u kulmi doono waxaan kaga tegaynaa saaxiibada qiimaha badan oo sida ay naqaadiin